ayaa ka dhacay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal maanta oo Jimcaha madashani ayaa waxay kulmisay salaadiin boqorro siyaasiyiin aqoon-yahan hal door iyo marti sharaf kale oo qaaliya meherkani ayaa qaabkan saaka u dhacay waxaan idinka codsanaynaa oo weydiisanaynaa Safiya Yunis Jaamac anu doonayno Cabdillaahi Yuusuf Aare inaan nasiisan iskula gurino waan idin siinay Safiya Yunis Jaamac oo aad doonayseen Cabdillaahi Yuusuf Aare mar labaad waxaan codsanaynaa meherkiina inaad noogu dartaan meherkana waa la idinku dari Cabdillaahi Yuusuf Aare waxa ku guuriyay Safiya Tusmo Yunis Jaamac oo waligeegu ii wakiishay inaan ku guuriyo meherkeeguna yahay 120 geela ma aqbashay guurkeeda بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير عبد الله حنبليو ريكورد بعد دكتي تاريخ بعد دكتي وان كوبو حنبليينينا إراد مهركاس عدمان تالكاد كغا دواقدو waxa la noogu yeeray duqeydayada in aanu maraka noqono waxaan leeyahay meesha meherka lagu gudoomayana duqeyba joog doonta taariikh mar labaad aad iyo aad baan ku bogaadinaya intaan jiray cimrigayga ama aan golo joogay waa meherkii ugu cajabta badnaa aan guud ahaan Soomaaliba aan kala kulmo khaas ahaanna beelaha diradan Jeermanka wahay 120 halaad oo mehera maanta igu horeysay شوف عشق MMTV مقالة بورمي حرنت قبل كوضل shacaylkii yaraantii galay Safiya Tusmo wali ma uusan ka dhamaan qulubteeda hase yeeshee dunidu waa meerto calafkuna waa lama huraan oo waxa aad calaf u leedahay 100 sano ba ka soo wareegato dib ayaad u calfan doontaa 30 sano ka hor jaceylkeedii ahaa ayay Safiya Tusmo la midowday maanta waxa uu meherkeedu ka dhacay magaalada Boorame halkaas oo ehel iyo aqribaba ay isugu yimaadeen Cabdillaahi Yuusuf Aare iyo Safiya Yunis Daahir Safiya Tusmo sida ay hore u sheegtay 16 jir iyadoo ah ayay iscalmadeen walow ay yihiin dad walaalo ah oo ehel ah haddana jacaylku malahan indho ehel ahaan amaba qofka fog hase yeeshee sida ay dad badan oo taageerayaasheedu u badan baqireen waxa ay heshay qof qiimaheeda yaqaan waayo Safiya Tusmo hotelka Rice ee magaalada Boorame maanta meherkeedu marka uu halkaas ka dhacay waxa lagu meheriyay 120 halaad oo geela hadda waxaad hore u arki jirteen gabdha 200 oo gram dahab iyo 100 gram iyo hedhodho hase yeeshee Safiya Tusmo waxa maanta meherkeedu uu ahaa 120 halaad oo geela iskoorka ay jibisay waxaan leenahay alf mabruuk Safiya waayo waxaad heshay qof qiimaha aad leedahay iyo waxa aad goysay yaqaano
teeda kale waxaan intaasi ka marnayn jacaylka faraha badan ee waqtiga iyo waayaha kala xanibay ee muddo ay isku soo guuxayeen balse calafku uu isiseejiyey oo dib isku hananaya. bal marka hore nala daawada muuqaalka qayb ka mid ah meherka iyo qaabka uu u dhacay iyo sidoo kale jawiga sida uu ahaa. زوجتك صفية يونس جمع كانت وليها إياه بتزوجها إياه بمهر قدره 120 من الإبل فألقى بهذا المتروك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان يا سلام ألف مبروك ayaan leenahay Safiyo Tusmo iyo saygeeda Cabdullaahi Yuusuf Aare meherkeeda waxa uu maanta ka dhacay isku hananaya. bal marka hore nala daawada muuqaalka qayb ka mid ah meherka iyo qaabka uu u dhacay iyo sidoo kale jawiga sida uu ahaa kuwaas oo aan ebalba meel kala jirin waayo Safiyo Tusmo hore sida ay u xustay waa in abtigeed rumaad qofka uu jacaylka kala dhaxeeyay. haddaba xafladda meherkan oo halkaasi ay isugu yimaadeen ehel fara badan oo ay farxadi wajiyadooda laga dheehan karay ayaa waxa ay bilaabeen inay hambalyo isla mariyaan hawada iyadoo Safiyo Tusmo xilligan ay ku sugan tahay dalka Zambia oo maalmihii la soo dhaafay halkaasi ay u joogtay barnaamijyo iyada u gaar ah. si kastaba ha ahaatee Safiyo Tusmo waxa ay hanatay jacayl waqti aad u fog runtii uu kala dhantaalay waayaha iyo waqtiga marka laga hadlayo dad qaarkood waxa ay u arkaan riyo in jacayl 31 sano kadib dib isku hanta ay tahay waxyaabo badana aana dhicin amaba ay aad u yar tahay in ay dhacaan dad intaas oo sano ka hor isjeclaa in ay haddana mar kale dib nolosha ugu midoobaan waa waxyaabo badana inta badan filmaanta uun laga arko laakiin nolosha xaqiiqda ah ay aad u gaaban tahay. muhiimadu ma ahan meherka, muhiimadu ma ahan waxyaabaha dhan ee dadku wadwadaan. muhiimadu waa in qof yaqaana qiimaheeda, qof dhab ahaan u jecel ay maanta calaf uu ugu daray. waana tan dad badan oo iyadu taageero u ah run ahaantiina khayrka la jecel ay u rajeynayeen. inta badan dad badan oo iyadu jecel waxa ay soo qorayeen ilaa iyo maalmihii la soo dhaafay kameyra wixii ku soo maray hadda ayaad hantiday qof ku yaqaan qiimahaaga. muhiimadu ma ahan kameyra wixii ku soo maray ee muhiimadu waa in ay hantisay jacaylkeedii dhabta ahaa, jacaylkeedii ilmanimada, jacayl run ahaantii aanan tirtirmin isna bedelin walow waqti iyo waaye adag uu dhexdooda soo kala dhexgalay. alf mabruuk ayaan mar kale ku leenahay Safiyo. waa waqti run ahaantii aad dad badan oo adiga ku jecel ay kula farxi lahaayeen, cadowgaagana ay ka nixi lahaayeen guusha mustaqbalka iyo farxadda maanta kaa muuqato iyo qiimihii aad mudnayd ee aad heshay. isku waara ayaan idin leenahay, farxad ku noolaada, hana u jabin cadowgaada. inta la ogyahay Safiyo Tusmo waxa ay soo martay nolol aad u adag run ahaantii sanadkan oo dad badan ay xasuustaan. waxa ay noqotay hadalhaynta ugu badan ee baraha bulshada. sidoo kale waxa jiray in dad badan ay nolosha ku cariiriyeen oo ay dhibaatooyin fara badan ay u geysanayeen isla markaana hadalladeeda iyo qoraaladeedu ay ka dhigayeen si qaldan ay u fasirayeen. sidoo kale mar ay joogtay Nairobi sanadkan gudihiisa waxa ay la kulantay dhibaatooyin in hadallo been abuura laga faafiyo oo aan sal iyo raad lahayn, balse intaas oo dhan maanta waxa ay ku iloobaysaa oo maanta loo golo fariistay dad badan oo ehelkeeda ah ama asxaabteeda oo ay ku farxeen in ay heshay qof muddo fog ay
ku taamaysay intaas ayaan barnaamijkan xiisaha leh run ahaantii kusoo gabagabeynaynaa